بسم الله الرحمن الرحيم muuqaalkan waxaan uga hadlaynaa si faahfaahsan mid midna u soo qaadanaynaa manaasisha iyo godadka dayaxa iyo burjiyada ay ka tirsan yihiin magacyadooda. marka hore waxaan aad uga hadlaynaa sida ay carabta u yaqaaneen. muuqaalkan kan xigana waxaan ku soo qaadanaynaa sida Soomaalidu u yaqaanaan iyo siyaabaha ay uga saadaaliyaan cimilada. xidigaha ka muuqda wareegga cirka xeeldheerayaasha cilmiga xidigista way kala qaybiyeen, waxaana la isugu leexiyey koox kastaa waxaa lagu magacaabaa burji ama constellation. waxaa jira 88 burji oo uu aqoonsan yahay ururka caalamiga ah ee xidigista International Astronomical Union. burjiyadan waxaa ka mid ah 12 ama 13 dhaca dariiqa ay ku safraan dayaxa, qoraxda iyo meerayaasha. manaasisha uu dayaxu dego waxaa sidoo kale dega qoraxda, oo waataan hore usoo sheegnay in dayaxa iyo qoraxda ay ku safraan isla xariiqa loo yaqaano ecliptic, oo ah xariiq halka uu maro la ogyahay laakiinse ma aha xariiq la arki karo ee waa mid la qiyaaso halka uu maro. halka dayaxu habeenkii dego hal mansil, qoraxdu waxay degtaa 13 maalmood. manaasisha dayaxa guud ahaan waxaa loo kala qaybiyaa 2 qayb oo kala ah 14 dhaca waqooyiga xariiqa kala bara cirka. waa xariiq cirka kala bara sida dhulbaraha oo kale, waxaana loo yaqaanaa manaasisha waqooyi. carabtu waxay u yaqaanaan al-shaamiya. 14ka waxaa ugu horeeyo al-sharataan, waxaana ugu dambeeyo as-samaak. iyo 14 dhaca koonfurta cirbaraha, waxaana loo yaqaanaa manaasisha koonfureed. carabtuna waxay u yaqaanaan al-yamaaniya. siduu allah qur-aanka ku yiri, waalqamara qadarnaahu manaasila xataa caada kalcurjuuni alqadiim. dayaxu wuxuu ku hakadaa sidaan soo niri mansil ama god, sida ay Soomaalidu u taqaano, sidii ruux musaafur ah. manaasishan waxay dhacaan ama ku yaalaan dariiqa ay ku safraan dayaxa, qoraxda iyo meerayaasha. dayaxu markuu habeenkaa dego meel ku beegan mansilka, carabtu waxay yidhaahdaan dayaxu waa mukaalix. marka uu dego meel u dhaxaysa 2 mansilna waxay yidhaahdaan ama u yaqaanaan dayaxu wuxuu degay alfurja. sabab aan la ogeynna waxay jecel yihiin marka uu dayaxu degan yahay alfurja ama meel u dhaxayso 2 mansil. haddaba haddaan mid u soo qaadanno manaasisha dayaxa, waxaa ugu horeeyo mansilka loo yaqaano al-sharataan, wuxuuna ku yaalaa burjiga loo yaqaano al-xamal. magaca xamal waa neefka idaha ah. afka Soomaaligana mansilkan wuxuu noqonayaa ama waxaa loo yaqaanaa godan. dadkii hore markay magac u bixinayaan burji waxay ku magacaabi jireen marka laysu geeyo xidigaha burjiga xayawaanka ama shayga uu ula ekaado, ha ahaado xayawaan jira ama mid khayaali ah. mansilka labaad ee uu dayaxu dego waa xidigtan, waxayna ku taallaa isla burjiga al-xamal. magaca waxa uu ka soo jeedaa al-batn oo ah caloosha xamalka. Soomaalidu waxay u taqaanaa listan. mansilka saddexaad waa mansilkan loo yaqaano al-thuraya, waxa uu ka tirsan yahay burjiga al-thawr. Soomaalidu waxay u yaqaanaan laxo ama lixo. magaca al-thawr micnihiisu waa dibi. magaca al-thuraya oo ah mansilka waxa uu ka soo jeedaa kelimadda atharwa oo ah tirabadnida. sidaan arkayno athuraya waa urur xidigo yaryar ah laakiin aad u tilmaan dheer oo aad loo yaqaano. mansilka afraad ee uu dayaxu dego waxaa la yidhaahdaa addabraan, waxa uu ka tirsan yahay isla burjiga athawr. Soomaalidu waxay u yaqaanaan cadaad. magaciisa waxa uu ka soo jeedaa yudabbir oo micnaheedu yahay waxa uu ka daba yimaadaa athuraya. xidigtan 450,000 oo sano ka hor waxay ahayd xidigta waqooyi, waana xidig aad u iftiimaysa oo xitaa ka iftiin badan tan hadda loo yaqaano xidigta waqooyi ama magaca afka qalaad lagu yidhaahdo polaris, oo mar kastaa tilmaanta cirifka waqooyi ee dunida. mansilka shanaad ee uu dayaxu dego waxaa la yidhaahdaa al-haqca, waxa uuna ka tirsan yahay burjiga al-jabbaar ama as-sayaad, oo ay Soomaalidu u taqaano nin la gigay. Soomaalidu waxay u taqaanaa mansilkan agaalicas. burjigan kama tirsana 12 burji ee uu dayaxu ku safro.
alxaqca magaciisu waxa uu ka soo jeedaa carabtu waxay u yaqaanaan qayb ka mid ah kooraha faraska ee uu lugta gashado ninka faraska saaran. waxay kaloo carabta u yaqaanaan magacaas saddexda dhagax ee la saaro dheriga marka cuntada la karinayo. mansilkan waxaad ku calaamaysan kartaa xidigta aadka u ifayso ee betelgiis oo ay carabtu u yaqaanaan mankab aljawsaa. mansilka lixaad waa alhanca. mansilkan waxa uu ka tirsan yahay burjiga la yidhaahdo aljawsaa amase attawaa'im. soomaalidu waxay dhahaan mansilkan agaalicad ama agaalicaanood. magaca waxa uu micnihiisu yahay laba mataana ah. waxaa mudan in aan ka hadalno xidigtan aadka u iftiimayso. waa xidigta keliya ee allaah uu ku sheegay qur-aankiisa, waxaana la dhahaa ashicra. waatuu allah qur-aanka ku yidhi wa innahu huwa rabu shicra. afka qalaadna waxaa lagu yidhaahdaa sirius. waana tan ay caabudi jireen qaar ka mid ahaa carabtii hore. xidigtan waxay ka tirsan tahay burjiga uu magaciisu yahay canis major. mansilka toddobaad waa mansilka addiraac. mansilkan waxa uu ka tirsan yahay isla burjiga aljawsaa ama attawaa'im, waana madaxa mataanaha. soomaalida mansilkan waxay u taqaanaa afagaal. mansilka sideedaad waa annasra. mansilkan waxa uu ka tirsan yahay burjiga sarataan. waa xidigo yaryar oo isku urursan oo marka la eego u eg caad ama daruur. soomaalidu waxay u taqaanaa mansilkan naafcadde. mansilka sagaalaad waa addarfa. isagu waxa uu ka tirsan yahay burjiga al asad, burjiga libaaxa. soomaaliduna waxay ugu yeeraan mansilkan naaf madoobe. magaca addarfa micnihiisu waa isha libaaxa. mansilka tobnaad waa aljabha oo uu dayixu dego. mansilkan waxa uu ka tirsan yahay isla burjiga al asad. magacana aljabha waxa uu ka soo jeedaa wejiga libaaxa. soomaalidu waxay u yaqaanaan mansilkan taar ama afqoys. mansilka 11aad azabra oo ku yaal isla burjiga al asad. magaca micnihiisu waa zubrat al asad oo ah shaashka libaaxa. soomaaliduna waxay u taqaanaa majin. mansilka 12aad ee uu dayixu dego waa assarfa oo ka tirsan isla burjiga al asad, waana saynta ama dibka libaaxa. soomaalidana mansilkan waxay u yaqaanaan kuxdin. ka 13aad waa mansilka alcawaa. waxa uu ka tirsan yahay burjiga alcadraa amase assumbula. soomaalidu waxay dhahaan mansilkan naasagaal amase dirirday. alcawaa magacu waxa uu ka soo jeedaa qaabka iyo qallooca ay u samaysan yihiin xidigaha mansilka. 14 waa mansilka assamaak. waa xidigtan sida aadka u iftiimayso, waxayna ka tirsan tahay isla burjiga alcadraa. soomaalida mansilkan waxay dhahaan dirir. mansilkan ama godkan magaca simaag carabtu waxay ugu magacaabeen in uu samada meesha ugu sarrayso gaaro, sababta oo ah labada samaag waxay dhacaan bartamaha cirka oo waqooyi iyo koonfurta adduunka isku si ayaa looga arkaa. soomaalida dhexdeeda waa mansil caan ah oo waxay u taqaanaa dirir. waxaa jira laba simaag. kan hore waa kan hadda aan ka hadlayno oo carabtu waxay u yaqaanaan simaak al aczal oo la micno ah simaaga aan hubaysnayn, iyo xidigtan oo iyadana sida aadka u iftiimayso ay ku magacaabaan simaag alraamix oo ah simaaga waranka wataa, taas oo ay ka wadaan xidigtan yar ee ku dhow oo aadka u iftiimayso. waxay kaloo dhahaan xidigtan yar raayat asimaak. simaak alraamix kama mid aha manaasisha uu dayixu dego. waxaa xiga oo 15 ah alkhafra. mansilkan waa labadan xidig ooan sida aadka u iftiimaynin. magaca soomaalida ay u yaqaanaan waa garbo. khafra waxay carabtu ugu bixiyeen iftiinka yar awgiis. khafartu shay waxaa la yidhaahdaa marka aad shay daboosho, marka iftiinkoodu waa daboolan yahay ayay ku wadaan. mansilka 16aad waa azabani. mansilkan waxa uu ka tirsan yahay burjiga la yidhaahdo almiisaan, waana labadan xidig. soomaalidu waxay u yaqaanaan mansilkan bayaxaaw.
waxaa xiga oo ah kan 17aad al-ikliil. mansilkan waxa uu dhacaa burjiga alcaqrab, gaar ahaan madaxa burjiga. soomaalidu waxay u yaqaanaan mansilkan gudban. mansilka 18aad waa alqalb, waa mansil isla burjiga alcaqrab ku yaal. waa xidigtan gaduudan oo aadka u ifayso. soomaalidu waxay u yaqaanaan libcas. kan 19aad waa ashawla, waxa uu ka tirsan yahay isla burjiga alcaqrab. shawla waa cirbadda uu haraanka wax ku mudo ama dibqallooca. soomaalidu waxay u yaqaanaan xoor. mansilka 20aad waa annucaa'im. mansilkan waxa uu ka tirsan yahay burjiga alqaws. mansilkan magaciisa waxa uu ka soo jeedaa, waxa uu u egyahay qaymada ama waxa la yidhahdo taambuugga. waxaa kaloo nucaa'im la yidhaahdaa qoryaha la saaro afka ceelka oo la yidhaahdo karkaarka. waxaa afka soomaaliga mansilkan lagu yidhaahdaa mareeg dheer. kan 21aad waa albalda. mansilkan isagu waa meel bannaan oo aan wax xidiga ah lahayn. soomaalida waxay dhahaan mardhan ama baho. magaca waxaa laga wadaa meel bannaan. carabta ninka sunniyihiisu kala fog yihiin waxay dhahaan ablad. sidaas awgeed mansilkan waxay ku magacaabeen albalda. mansilka 22aad waa sacad addaabix. mansilkan waxa uu ka tirsan yahay burjiga aljadi. soomaalidu waxay dhahaan mansilkan faruur. magaca addaabix micnihiisu waa kii wax gowracayay. xidigtaa yar ee ku agtaal ayay waxay ka soo qaadeen inuu yahay neefkii uu gowracayay. sacad bulca waa xidigtan aan sida aadkaa u iftiimaynin oo keligeed ah. carabtu waxay u bixiyeen bulca oo ka timid balaca oo ah liqidda, oo ay ka wadaan addaabix neefkuu gowracayay wuxuu ahaa xidiga ku agyaal. mansilkan waa xidig keligeed ah, waxayna u qaateen markaa neefkii uu gowracayay wuu liqay. soomaalidana mansilkan waxay dhahaan jid gabarre. sacad assacuud. mansilkan wuxuu ka tirsan yahay burjiga dalwa. soomaalidu waxay dhahaan mansilkan jid diriqle. magaca waxa uu ka soo jeedaa sacaada ama farxad. carabta xidigan waxa uu ku beegan yahay wakhtiga ama xilliga barwaaqada ah. sacad al aqbiya waxa uu ka tirsan yahay isla burjiga addalwa. magacu waxa uu ka soo jeedaa guri ka samaysan wabar ama suufka xoolaha oo ay carabtu dhisan jireen. soomaalidu waxay u yaqaanaan mansilkan jad gacan leh. mansilka 26aad waa farqulmuqadam. mansilkan waxa uu ka tirsan yahay burjiga la yidhaahdo xisaan al acdam, laakiinse burjigan kama mid ah burjiyada uu dayixu ku safro. soomaalidu waxay u yaqaanaan mansilkan rab hore. mansilka 27aad waa farqulmu'akhar. waxa uu ka tirsan yahay isla burjiga xisaan al acdam. soomaalidana waxay u yaqaanaan mansilkan rab dambe. kan ugu dambeeya oo 28aad ee uu dayixu dego waa alrashaad. mansilkan manaasisha ugu dambeeyo waxa uu ka tirsan yahay burjiga alxuud. soomaalidu waxay dhahaan ama u yaqaanaan farangaag ama meecaad. waxaana halkan dib ugu soo noqonnay burjiga alxamal oo ah kii aan ku soo horreynay ama aan ka soo bilownay. intaana waxaan ku soo gabagabaynaynaa ka hadalkii goonigoonnida ee abraajta iyo magacyadooda iyo siday carabta u yaqiineen. muuqaalka kan xigaana waxaan si faahfaahsan uga hadli doonaa soomaalida magacyaday u yaqaaneen iyo sidii ay ugu adeegsan jireen saadaasha hawada.